cajalad fiidyo ah ayaa burburisay noloshayda. gabar yar oo dhigata jaamacadda kulliyad tarbiyada ayaa waxay ka warramaysaa sidii ay ku weyday wixii ay mustaqbal lahayd. waxaa la dhashay 3 gabdhood oo kala dhigta dugsiyada sare iyo kuwa dhexe. aabbahood wuxuu ka shaqayn jiray dukaan si uu uga helo waxay gabadhiisu quutaan iyo waxay u labistaan. gabadhani waxay ahayd qof dadaal badan xagga duruusta iskoolka. waxay caan ku ahayd xagga akhlaaqda iyo dadaalka ay waxbarashada ku bixin jirtay. waxay ahayd tusaale ay ku daydaan gabdhaha kale ee jaamacadda dhigta. marka la soo gaabiyo, waxay kulansatay sifaadka fiican ee qof lagu sheego. sheekadan oo aan ka soo qoray kitaab yar wuxuu sheekha ku soo guuriyey si toos ah hadalkii gabadha iyadoo ka warramaysa wixii qabsaday waatan. maalin maalmaha ka mid ah anigoo ka soo baxaya albaabka jaamacadda ayaa waxaan arkay wiil dhallinyaro ah oo aad u qurux badan oo isoo fiirinaya sida qof ii yaqaanaa. dheg jara kuma siin oo waan iska socday anigoo cabsi igu jirto. wuu isoo dabagalay isagoo igula hadlaya hadal aan wanaagsanayn sida carruurta oo kale, sida isagoo igu leh qurux badan, waan ku jeclahay inaan ku guursada ayaan rabaa. muddo badan ayaan ku raadinayay. markii aan maqlay akhlaaqdaada iyo wanaagga ay dadku uga sheegayaan, waan orday anigoo iska dhagatiraya waxa uu igu akhrinayo, waayo weligay ima soo marin arrintaas oo kale. guriga ayaan tegay anigoo daalan oo la yaaban arrintan. habeenkii oo dhan ma saaxan. waxay iga noqotay yaab iyo amakaag. maalintii dambe markii aan ka soo baxay jaamacadda ayaan ku kulannay haddana iridka isagoo isugaya oo ii dhowla caddaynaya. sidii si leeg ayaan ugu cararay. dhowr jeer ayuu sidaasoo kale ii soo weeraray oo aan ka cararay ilaa aan ka aado. arrintii sidaas ayay ku socotay maalin kastaba isaga oo soo jaraya masaafo ilaa uu markii dambe ii soo dhigay waraaq albaabka guriga hortaysa. aad ayaan uga shakiyey qaadisteeda, hase yeeshee waan qaaday aniga oo ay gacanta i gariirayso. markii aan furay oo aan akhriyey waxaa ku qornaa hadallo xambaarsan jacayl iyo isaga oo ka cudur daaranaya wixii dhib ah uu geystay intuu i daba taagnaa. warqaddii ayaan jeexjeexay oo aan tuuray. wax yar kadib ayaa waxaa ii soo dhacay taleefon, mise waa isagii. wuxuu weydiinayaa inaan akhriyey waraaqda iyo in kale. haddii aad edab yeelan weydo, waxaan u sheegayaa waalidkay, waadna ogaan doontaa wixii kugu dhaca ayaan ugu cagajugleeyey. wax yar kadib ayuu ku soo celiyey taleefonkii, wuxuuna bilaabay inuu isku ka ii sharaxo. wuxuu ii sheegay inuusan xumaan ila doonayn ee uu rabo inuu i guursado. wuxuu iga dhaadhiciyey inuu yahay nin hantiila ah. wuxuuna ii ballan qaaday inuu dhisi doono daarta ugu weyn magaalada oo aan aniga ahay amiiradda keliya ee degi doonta, iyo inuu siin doono wax alle iyo wixii aan u baahdo ee adduunyaya ah. wuxuu intaas ku daray inuu yahay qofka keliya ee ka haray reerkooda ee nool maanta oo aysan jirin cid ku haysata hantidaas faraha badan ee uu haysto, oo wax ka maqan ay tahay xaas wanaagsan oo edab leh sidayda oo kale. sharaxaad dheer kadib waan u qalbi jilcay, waxaana bilaabay inaan ka dhagaysto sheekada. marka uu soo diro taleefanada waxaan is arkay anigoo ku sugaya taleefon maalin kasta, oo haddii uu soo diri waayo murugoonayaba, iyo inaan sugo markaan ka soo baxo jaamacadaha bal inaan arko ninka ii ballan qaaday mustaqbalka rajada wanaagsan ah. maalin anigoo ka soo baxay jaamacadda ayaan kula kulmay albaabka isagoo oo taagan. markaas ayaan kala batay farxad. waxaanan bilaabay inaan gaarigiisa la fuulo oo aan ku soo wareegno magaalada annagoo sheekaysanayna. markaan la joogo waxaan noqday sidii qof aan lahayn ikhtiyaar. sida uu ii hantiye awgeed awood uma lahayn inaan isweydiiyo sababta aan u socdo. waxaad mooddaa inuu iga siibay wadnaha. waxaan bilaabay inaan rumaysto dhammaan hadalladiisa, gaar ahaan marka uu igu yidhaahdo, waxaad tahay xaaskayga mustaqbalka dhow. diyaar daar weyn ayaan ku taagay. dunidan oo dhan baan ku dabaalsiinayaa, dadna waa adiga oo keli ah. maalin maalmaha ka mid ah ayuu burburiyey noloshaydii siday u dhannayd.
wuxuuna igu ceebeeyey ummadda hortooda. Aninkaasina waa maalin madow. Sidii caadada ahayd ayaan isla baxnay oo aan israacnay. Wuxuu i geeyey guri aad loo qurxiyey oo si fiican u goglay. Waana iskara fadhiisanay annagoo is-egeegayna. Waxaan hilmaamay xadiiskii nebiga sallallahu calayhi wasallam ee uu nooga digay inay nin iyo naag ajnebi kala ahi meel cidla ah wada fadhiistaan. Waxaan bilaabay inaan eegay oo isagana i eegay ilaa aan is arkay anigoo hoos jiifa. Waxaan arkay anigoo gacanta ku haya wixii aan lahaa, wixii ugu qaalisanaa. Waxaan soo kacay sidii anigoo waalan. Markaas ayaan ku yidhi, maxaad igu samaysay? Ha cabsanin, waxaad tahay xaaskayga. Sideen xaaskaaga ku noqday adigoo i mehersan? Ayaan ku calaacalay. Waan ku mehersan doonaa mar dhow, ayuu igu laabqaboojiyey. Guriga ayaan aaday anigoo murugaysan, lugaha qaadila oo oynaya. Waxaa igu shidmay dab jirka oo dhan ah. Gobolkii ayaa iigu madoobaaday. Waxaan bilaabay inaan habeen iyo maalin ooyo. Waxaan ka tegay waxbarashadii. Xaaladaydii ayaa sii xumaatay. Qoyskaygiina ayaa igu wareeray ayagoo la yaaban waxa igu dhacay. Waxaan isku samarsiiyey arrintii uu i ballan qaaday ee guurka ahayd inuu fulin doono. Wakhtigii ayaa dheeraaday, iyadoo habeenkii iyo maalintii ay igu cuslaatay buuraha. Talow maxaa ku xigi doonaa? Waa tan balaayo kale oo ka darantii hore. Taleefon ayaa soo dhacay. Waa isagii oo aad mooddo codkiisa inuu ka soo hadlayo meel fog. Waxaan rabaa inaan kulanno oo aan ka wada hadalno arrin muhiim ah, ayuu yidhi. Aad ayaan u farxay anigoo u haystay inuu doonayo inuu nikaax samaynayo iyo aroos walba. Waxaan u tegey isagoo aad mooddo shaydaan. Wuxuuna igu yidhi, waxaan kugu bishaaraynayaa inaadan iga sugin wax guur ah weligaa. Waxaan rabaa inaan ku wada noolaano sidaas. Dharbaaxa ayaan kaga soo qaaday ay indhuhu la soo gaareen. Waxaan u sheegay inuu yahay nin akhlaaq laawe ah oo mustaqbal doonayn. Waana ka tegey anigoo oynaya. Wax yar isug, ayuu igu yidhi. Waxaa gacanta ugu jira cajalad fiidiyoo ah. Wuxuuna igu yidhi, si jees ah, taas ayaa ku burburinaysa noloshaada. Maxaa ka duuban? Ayaan weydiiyey. Kaale oo arag waxa ku duuban. Waxay kugu noqonayaan la yaab, ayuu igu yidhi. Waan raacay si aan u soo arko waxa ku duuban. Waxaan ku arkay dhammaan faaxisho oo ah eena dhex maray markii aan guriga joognay. Maxaad samaysay? Yaa taalim, ayaan idhi. Kaamirada ayaa guriga geliyey oo duubtay. Cajaladdan ayaan ku haystaa oo aan kugu burburinayaa haddii aan diidid waxa aan rabo. Qayle iyo oohin hor leh ayaan isku daray, waayo ceebtu waxay u gudubtay qoyskayga. Runtii waxay ku dhammaatay inaan ninkii u noqdo la hayste oo sidaa uu doono ii maamusha habeen iyo maalin. Si fiican ayaan u dabaashay. Waxaan ka wareegay noloshii sharafta lahayd. Waxaana ku wareegay dumarka nooca liita. Qoyskeennaga war uma hayaan waxa dhacaya. Cajaladii ayaa faaftay, waxayna gacanta u gashay in adeerkay. Arrintii ayaa laba qaraxday. Waxaa ka war helay waalidkay iyo dhammaan reerkayagii oo dhan. Waxay u sudagudubtay ceebtii oo ay qaadatay dhammaan magaaladii oo dhan. Gurigaygii waxaa hareeyey ceeb. Waan dhuuntay si aan u badbaadiyo naftayda. Waxaan sidoo kale magaaladii ka cararay dhammaan qoyskaygii oo dhan. Hase yeeshee ceebtiina kama harin ee waa la guurtay. Waxayna noqotay arrintii mid looga sheekaysto majaalista. Cajaladii ayaa sii fiday oo gacanta u gashay shabaabka magaalada ama dhalinyarada magaalada. Waxaana ku biiray dumarka jirkooda ka ganacsado anigoo murugaysan. Ninkan wuxuu horey u soo beeleeyey gabdho kale oo sideedoo kale ku duubsaday iskoolka. Waxaan go'aansaday inaan ka argoosto oo aan ka sameeyo mid ka xuntuu igu dhigay. Maalin ayuu isoo galay isagoo aad u cabsan. Waxaan u degdegay inaan ka faa'iidaysto jaaniskan. Waxaan caloosha ka geliyey toorey. Halkaas ayaana ku dilay shaydaankii. Waxaan kaga raaxeeyey dadkii uu dhibaatayn jiray. Waxaan u qoray sheekadan si ay ugu noqoto waano gabdhaha yaryar ee soo kacaya, si aydan u kaadsoomin hadallada jilicsan ay ragga ku siraan dumarka. Waxaan ku soo hordhigay sawir kaamil ah sidii aan u burburiyey noloshaydii iyo tii qoyskaygaba. Aabbahay wuu dhintay isagoo ku celcelinaya, xasbiya allaah wa nicma alwakiil. Allahna asturo, waayo haddii uusanna asturin kulligeen
waxaana ceeb socota